munaasabad ballaaran oo lagu xusiyay maalinta haweenka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana laga xusay guud ahaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda heer gobol iyo mid degmo oo horkacayo xogayaha fulinta gobolka Saraar Caawil Axmed Dheereeye, gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ahna kusimaha duqa degmada Caynaba Abubakar Shida Xasan, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar Sulaymaan Cali Cawad, garabada haweenka ururada naw iyo dalada nagaad iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan. ugu horreyn waxaa madasha hadal ka soo jeediyay maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Abubakar Shida Xasan oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. anagoo ku hadlaynaa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna gudoomiyaha degmada Caynaba waxaanu halkan hambalyo guud uga soo jeedinaa haweenka ku nool tumada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saraar. gudoomiyaha ururka naw ee gobolka Saraar Marwo Aamina Aadan Nuur iyaduna ku hadlaysay magaca ururka naw ayaa dumarka ka soo qayb galay madashani ku boorisay inay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo difaaca wadanka. jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayid marmada madaxweynaha Aamina Maxamed Jaamac. waxaan kaloo salaamayaa maamulka gobolka Saraar haweenka Soomaaliland iyo gobolka Saraar haweenka ku nool. gudoomiyaha dalada nagaad Khadiija Maxamuud Jaamac ayaa iyaduna farta ku fiiqday muhiimadda ay leedahay in dumarku ay yeeshaan maalin u gaar ah. waxaan maxay ku boorinayaa haweenka gobolka Saraar ama haweenka maxay Soomaaliland inay garab taagnaadaan ciidamada qalabka sida duwaha waxbarashada gobolka Saraar mudane Sulaymaan Cali Cawad ayaa isna dumarkii ka soo qayb galay munaasabadan ku adkeeyay inay ka qayb qaataan sidii ay aqoontooda waxbarasho u kordhin lahaayeen maadaama ay wasaaradda waxbarashada mas'uulmaanta ka tahay qof dumar ah. xisbiyana manihin waxaynu qarankii ama ummadii jamhuuriyadda Soomaaliland ee u taagneed horumarinta iyo nabadgelyada iyo kor u qaadista ummadooda iyo dalkooda iyo ciidooda iyo caalamkooda ayaynu marka loo diyaar garoobo ciidamada la isgarab taago difaaca dalka la isgarab taago nabadgelyada. ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi soo xidhay xogayaha fulinta gobolka Saraar oo isagu haweenka kula dardaarmay inay dadaalkooda si lama laabaan. si kastaba ha ahaatee waxaan munaasabadan ka soo qayb gelin oo aan haba yaraatee ka soo xaadirin wasaaradda shaqada qoyska iyo arrimaha bulshada oo aan ilaa haatan loo soo magacaabin mas'uulkii u matali lahaa gobolka. Maxamed Aadan Dirir, Somali Channel, Caynaba.